xigta ulajeedka xafladani waxa weeye waa xaflad bandhigeed lagu soo bandhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo waxqabadka shaqada ma garanaysaa iyo in lagu qeexo shirkadda Orange Worldwide Company. hadafka ugu weyn aan meeshan u nimida waxay tahay in ardayda reer Puntland inaan u fududeeno howlahooda waxbarasho dadka markaas daneynaya inay wax ku bartaan dalka dibadiisa. qof walba isku hal ma ahan, qofna dhaqaale yar ayuu haystaa, qofna dhaqaalihiisa uu yar yahay dalka dibadiisa ayuu rabaa, qofna wuxuu rabaa dalka gudihiisa inuu wax ku barto. si walba ha ahaato qof walba marka waxaan rabnaa inaan kula tacaamulno qaabka uu yahay. anoo ku hadlayo magaca shirkadda Orange oo ah General Operation Manager-ka. shirkadda Orange shaqooyinkeedu ma ahan shaqo hadartaan meeshan aan ku soo koobi karno. shaqooyin badan ayay qabataa. laakiin waxa laga yaabaa hadartaan Puntland mise xafiiska Garowe inaan u soo fasaxnay shaqooyinkeeda qayb ka mid ah oo wili qaybaha kale xataa wili aan loo soo fasaxin. laakiin mustaqbalka dhow hadduu Ilaahay yiraahdo haddaan aragno in oo shaqada si fiican meeshan ugu soconayso waxaan rajaynaynaa hadduu Alla idmo in shaqooyinka qaar kale in lagu soo dari doono oo culeyskooda intaan in ka badan inaan sii doono. Orange waa shirkad weyn badan oo ka shaqeyso shaqooyinka ugu badan ee qabato waa service. ummadda ayay u adeegtaa. inay ummadda u adeegtana waxyaabaha ku kalifaa waxay tahay markay aragtay dhibaatooyin tiro badan. markay aragtay oday ayaa inuu xafiiska kugu yimaado wuxuu ku leeyahay war 3 jeer 4 jeer lacag leega cunay cunugeygana wiil wax barasho ma helin waa 3 sano 4 sano ayaa meeshan fadhiya. marka waxyaabahaas markaan aragnay oo anakoo markaas dalka dibadiisa waxaan ku soo baranay aniga walaalkayga Ibrahim waxaan ka mid ahayn dadkii oo sanadka markuu ahaa 2012 oo master u helay dalkaas Turkiga aan ka soo faa'iideysanay inaan master aan ka soo qaadanay dalkaas oo ka soo laabanay 2016kii ka soo laabanay. علاقات أنت عن لك مركز أسكوسو حرني يومرك أنت عن من واد ما يسرني مركز أو إلهي وحنو صورة جريء إن أمضى عن كسرنا عليس كسرنا أو عليس كسرنا بدن أو قف والبو حركة سقف جد كتاجنا وحوليه هاي أضي أو إسك مسكير وحبه يسرن أو وحير دخالير إسك هيس وحوليه هاي ورويل كذا حبرش مربطة معنا قفا جعلنا ماله ما أنت أوبد كيس بريت إنه جار مستقبل في عن جاره مركز وحوليه نعم وربا مركز وحوليه كان العك العقد جد كده أحس لو قاطي لما ما صدق مالك كده مس أسبوع كده بقول لي هاي ورنيه أسبوع ضم أي ماو مالك كده بقول لي ورنيه العقد هذا ويبر برتيو ميلان قدرنا أنت كورك ستي بقل دولار إلى بقل دولار مال هبل كود جاي كقاضو وده جو حسابية مالهن صوته واحد دوكمنت عدينا يوح أو قرال أو واحد ما كلا قاضرين صدرت هذا مركز علاش كاسترده بدل مركز أرجني مجتمع بول صوماليات مثل بلشة صوماليات ayaan waxaan u aragnay in xafiiskan Orange inaan furno si aan u baahitirno dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan. waxaan leeyahay Cabdullaahi Kablaan waxaan ahay director-ka Pozo Education Youth Center waxaan ka imid dalka Turkiga waxaan u imid in aan idin fududeeyo inaad gaartaan hadafkiina ah in dalka Turkiga wax ku soo barataan waxaan ka shaqeeyaa sideedaba in jaamacadaha dalka Turkiga ku yaala aan ardayda ajaanibta uga soo saaro admissionskii ay wax ku baran lahaayeen una tageleen halka ugana baran lahaayeen si fudud iyaga oo qalbiga ku haya had iyo goor inay gaaraan hadafkooda. Arkadaşlar Allah nasip ederse burada size Avrupa Meslek Yüksekokulu Kıbrıs Adakent ve Karabük Üniversitesi'nin YÖS sınavlarını gerçekleştireceğiz. Sizlerin bu sınavlara girmesini istiyoruz. Buradan alacağınız sonuçlarla sizleri istediğiniz bölümlere inşallah yerleştireceğiz. Artık gerekli bilgileri arkadaşlarımız size verir. Sorularınız olursa birazdan cevaplarız. walaalayaal maanta waxaan rabnaa inaan qabanno imtixaan lagu helayo admissionska jaamacadaha kala ah Karabük University iyo Island City University oo Qobrus ku taala iyo European Vocational High School oo diplomas bixiya waxaana dhammaantiin ka rajaynaynaa imtixaankaad gashaan kuna guuleysataan macluumaadka inta ka sii dheer oo faahfaahinta ah asxaabta kale ay idin sheegi doonta waxaa la qaadi doonaa imtixaanka maalinta Arbacada 17 bisha July
insha Allah waxaan lagu qaadi doonaa jaamacadda Boosaaso University marka dhammaan waxaan ardayda ku baraarujinaynaa inay ka soo qayb galaan imtixaankaas oo ay waqtiga ay ku xisaabtamaan waqti badan ma jiro waxaa jira beri oo kaliya oo lagu targalay in ardayda isku diyaariyaan oo imtixaanka ma garanaysa iyo ciddii ka dhiman ama mashruuca Orange daneynayso inay ma garanaysa registration ka soo marto ay ka faa'iideystaan waqtiga yar marka waxa lagu gali doonaa jaamacadda Boosaaso University waxaan la qaadi doonaa imtixaanka maalinta Arbacada imtixaanka wuxuu socon doonaa 5 saac waxaan la gali doonaa 2 imtixaan weeye oo 2 jaamacad loo kala fariisan doono marka waxa dhacayso ardayga imtixaanka waa inuu u fariisto 2 saac hadhoodina 30 daqiiqo oo refreshment la siiyo kadib way soo noqonayaan waxay gali doonaan imtixaanka labaad insha Allah waxaan idin rajaynaynaa haddana shirkadda Orange Worldwide Company in ma garanaysa imtixaanka ay ku guuleysataan hadafka aad leedihiin inaad gaartaan DMI